Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhowow daawada barnaamijkeenii taxanaha inoo ahaa ee dhimashadii caddayd qaybtiisii afraad. Markaas kadib sargaalkii wuu dhoola caddeeyey, laakiin ana waxay u muuqatay qof aan faraxsanayn. Waxay dhahday alla qaali, taasi ma wanaagsano. Maya ayuu ku dhahay, ma wanaagsano, laakiin sheekada ku saabsan herointa way ka xun tahay xumaan daran. Ma jecli sheekadaas ayuuna ugu soo gabagabeeyey. Cutubka 3. Subaxii xigay Anna Hallan waxay soo aaday maxkamadda, iyada ayaana u horeysay. Waxay fadhiisatay qolka maxkamadda wayna sugtay. Waxaa imaaday dad badan. Waxay aragtay nin iyo xaaskiisa. Laga yaabay waa Xasan hooyadiis iyo aabihiis ayay ku fikirtay. Mana aysan doonaynin in ay la hadasho. Waxaa imaaday qareenadii iyaga oo wata warqadooyin badan. Waxay fadhiisteen miiska horteeda ah, waxayna u hadleen si deggan. Labadan qareen waa labo saaxiibo hore. Ana ayaa ku fikirtay, laakiin mid ka mid ah wuxuu doonayaa in gabadhayda dhimato, halka kan kalena uu doonayo in ay badbaado. Kadib qareenadii waxaa ku soo xigay xeerbeegtadii oo ka kooban 11 qofood oo iskugu jira rag iyo dumar. Waxayna fiiriyeen Anna, waxayna u hadleen si deggan wax ku saabsan iyada. Dadkan uma muuqdaan dad aad u muhiim ah ayay ku fikirtay, laakiin waxay u muuqdaan dadka ugu muhiimsan halkan. Waxay doonayaan in ay dhahaan iyada ayaa samaysay ama iyada shaqo kuma lahan. Kadib Saro waxay ii imaanaysaa gurigayga ama way dhimanaysaa. Waxay fiirisay wajiyadoodii si taxadir leh. Kadib waxaa imaaday qaar ka mid ah booliskii. Sargaal dambi baar Casiis wuxuu arkay Anna wuuna u dhoola caddeeyey, balse Anna lama hadlin asiga sababtoo ah Saro ayay isla imaadeen isla waqti. Waxay u muuqatay mid cabsanaysa, wejigeedana wuu caddaa. Waxay aragtay hooyadeed, waxayna siisay dhoola caddayn aan farxad lahayn. Waxaa jiray 2 boolis oo gadaasheeda soo socday, laakiin Anna ma fiirinaynin iyaga. Waxay fiirinaysay ninka dhalinyarada ah ee madow haddana dheer oo Saro ku xigay. Xasan, asiga qiyaastii wuxuu jiray 20 sano. Anna ku fikirtay, aad ayuu u dheer yahay, laakiin wuxuu leeyahay weji wanaagsan iyo indho aad u qurux badan oo madow. Saro wuu jecel yahay, waan fahmi karaa taas, laakiin wuxuu u muuqdaa mid aan aad u faraxsanayn. Sidoo kale wuuna cabsanayay. Gacmihiisu wuu dhaqaaqayay xilliga oo dhan. Xasan wuxuu fiirinayay Saro wuuna u dhoola caddeeyey. Sidoo kale iidana way u dhoola caddaysay. Ana waxay doonaysay inay la hadasho Saro, laakiin nin boolis ah ayaa ku dhahay si qayli leh, dhammaan waa inaad istaagtaan fadlan. Qof walba wuu istaagay. Waxaana qolkii maxkamadda soo galay xaakimkii. Wuxuu aastay kursigiisa si uu u fadhiisto. Qareenkii booliska ayaa bilaabay, labadan dhalinyaro waxay imaadeen waddankan isbuucii la soo dhaafay, ayuuna dhahay. Wiilka dhalinyarada ah wuxuu ku nool yahay waddankan, halka gabadha ay ku nooshahay waddanka England. Xalqadeennii maanta intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa. Inta aynu xalqad midaan la mid ah ku kulmi doonno waxay idinkaga teginaa sidaa iyo nabadgelyo.